waa dhawaa farxiye walaalo. oo ku mahadsantahay horta baacan inaa caawa maaragtay iga heshay inaa life soo gashid adoo raba inaa waxyaaba badan clear garaysid ama caddaysid soo dhowbaayo waa dhawaa horta dhammaan asxaabta meesha ku jirta ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel walba ay joogaan. Dhammaan inta meesha ku jirto, inta ii soo duceysay, inta dhibkayga dareentay, dhammaantood waan salaamayaa. Waxaan meesha u soo koray hadda wax yar inaan caddeeyo maadaama aan waqti aan video YouTube ku duubo ama YouTube ka hadlo aanan haysan. Tan xataa igu adag tahay laakiin waxaan jeclaystay inaan wax yar aan caddeeyo. Horta qof walba wuu dhimanayaa maanta qof adduunkan joogaayo ma lahan. Qof walbana saacadiisa ma dhaafayo. Aniga hooyaan ahay waxaan qalbigaygu wuu gubanayaa laakiin waa ku samirsanay qadarta Alle. Ilaahay subxaanahu wa tacaala i siiyey shalay maantana iga jeclaaday. Saqiir waayo dembi ma lahan. Alxamdulillaah. Waxaan rabaa inaan halka ka sheego waxaan arkay gabar hadda YouTube ku soo duubtay Amira Qurux. Waxaan rabaa wax yar inaan halka ka dhaho. Horta Amiroy waan ku salaamayaa marka hore. Waxaad tiri anigu ma aqaani horta ma la socdaan asxaabta. waa kula socdaan commentiga xiro unahay kula socdaan Goobtiga hadday la socdaan YouTube-ka clipka soo gelisay ha soo qoreen iska fur commentiga. Amiin. Hadday la socdaan topic aan ka hadlayo ha soo qora YouTube-ka ka soo aragteen. Videoga hadda soo gelisay Amira Qurux waa ka hadlayaa channelkeeda. Bye. Okay. Waxaan rabaa inaan wax yar dhaho. Amiroy horta waxa weeyaan waxaad tiri ma aqaano gabadhaas. Horta aqoon waxaan u malaynayaa qof maanta garab u baahan inuu aqoon u baahnayn inaa aqoonaatid. Shalay adi dhibaataa ku dhacday anigu kuma aqoon. waa soo fariistay YouTube waa ka soo hadlay macnihii dareenkayga ku muujiyey si qiiro leh xanuunka aad dareemaysid inaan kula dareemayo. kuma lahayn aqoon ma fahantay. maanta waxa keentay anoo tacsi ku dhex jiro wiilkaygii aniga 24 saac kama soo wareegin 24 saac kama soo wareegin intuu uu qabriga ku jiray. Inaa intaa codkayga keentid weliba soo jarjartay oo intii muhiimadda ahayd aad ka soo reebtay aad bulshada Soomaaliyeed aad la hortimid. Horta wax walba waxaa la yiri maxay ahayd maamaadii kor waaye loo wada indho. Qof walba waxa waaye uu arkayaa qof walba waxa uu u jeedaa. Anigu maanta ma qofna kuma qasbaayo muxuu qofkaas ii soo booqan waayey. Qof isaga xor ah qof wuu soo booqan karaa kumana soo booqan karo. Ilaahay wuu kuu saqiri karaa kuma saqiri karo. Qasab ma inuu qofku ku soo booqdo ma fahantay. Marka intaanan aan usii gudagelin sheekada codkaan jeclaan lahaa ina dhegeysiisid. waa ku mahadsantahay ducadaada aad iyo aad baa u mahadsantahay Farxiye wax yar ii sug. aad iyo aad
soomaalida 1.7 a meesha ku jirto dhagihiina fura si fiican u dhageysta videoga gabadha walaashii soo gelisayna codka ay kusoo dartay si fiican usoo dhageysta macnihii waxa weeye xaqiiqada halkaas ka arkaysiin ma fahanteen soo dhagihiina furta dhageysta codkoo dhammaystiran waa kan oo lasoo jarjarin dhageysta siida mahadsantahay ducadaada aad iyo aad baa umahadsantahay run ahaantii waa arkayna soo wacday soo waxawaaye ma rabin inaan qofna aan dareedka ka qabto qof oo waxawaaye Malaysia joogo inuu isoo booqdo ma rabin ma fahanti because markii aan go-aan gaaray inaan qof iyo 20 bilood asal ku jira ma fahanti inta qofkii rabo inuu isoo booqdana waxawaaye markuu ugu horeysay arkuu isoo booqan lahaa u imaan lahaa ma fahanti so أنا كنت قصد كملي إنه إصاب بوقض معني خصب كمدايا إصاب بوقض لكن ما دام فرحة الأسلقة يفسدوا أو مرك أو فرحة جرتوا أنا مرقتنا وحفي عددكم ما دام يتسكودن جوغان اسكو شقان اللي يدقف كدباتي سن إن لقرب استاق أو محيتي وحبايا نصيناني وحبا أمباني حول الحمد لله لكن حواده هو كلي فاميلي مجوق وحبا ما قف أو مالين عاوية أما وحيقة عاوية استالك كجرون وفوقي intaas waxawaaye abaal baan u ahay lama fahanti soo haddana waxawaaye alxamdulilah ma wax dhib lama ah walaalo waxawaaye maalinka ay soo wacdayna anaa rabinin qof inaan ka qabto teleefonka fahanti because waxawaaye go-aanaa qaatay soo ani dadka waxay yihiin meesha jooga ogaaday soo go-aankayga ku taaganay ma rabo inaan jabiyo adigna waa ku mahadsantahay wicitaankaaga thank you okay Soomaaliya inta videoga soo daawatay way soo daawatay codkana way soo dhageysatay marka kolay waxa fiican qofku haduu wax haduu sheegayo inuu wax macnii fiican ama been hadaa sheegayso wax la yiri wuxuu ag baa la sheegaa soo ani gabadha walaashay horta ma aflagaadeynayo laakiin se u hadashay baan xoogaa ka yara damqaday anoo maanta maxay tahay tacsi ku jiro wiilkayga adduunka ka fiirsanayo waayay ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay tahay ayaga jeclaystay alxamdulilah ku faraxsanahay qofna ma eedeynayo maanta qofna xanuun ma qaadi karo mana keeni karo laakiin waxa macnihii damiir xumo ah gabar Soomaaliyeed oo maxay tahay waxba idin wadaagin haddana isku building degantiin qof aadan waxba aqoonin waxba la wadaagin oo islaam ah hadii maanta tacsi ku timaado waad u tagaysaa ilaahuma qofka dad iska dishiin darsaatiin xaq la isku leeyahay maxay tahay la isku tagayaa waa la isku tacsiyadeynayaa laakiin anagoo isku building degan haddana ayna iisoo tacsiyadeyn haddana cod aan adna weliba u diray iyadoo uma dirin adna u diray ay keentay oo tiraahday Soomaaliya runta hala ogaado oo weliba soo jarjarto codkoon dhamaystirnayn soo taas waxa u arkaa damiir xumo iyo maxay tahay caqli xumo baa u arkaa naag weynaatay oo ilaa tukuuro ee gar iyo kafuur leh inta meel soo fariisatay sheegaysa macni waxyaalo munaasib ahayn soo horta dee waxba kaama oranayo ma fahanti waqtina uma hayo hadda aan YouTube kusoo fariisto wax kusoo duubo marka umurahayga ii kala toosaan xaaladda aan ku jiro hadda ka baxo situationkan markaas wax weeyaan si fiican la isku dabsaarayaa soo intaas meesha usoo koro inaan sheego marka dee farxii adigana waa mahadsantahay walaalo may samsamey mid baay macaan ogsooneyn taasoo ah horta fiir adduunka kana walaal lagu yahay mar walbo la faraxsan yahayna walaal lama ahaan karo dee marka murugada iyo farxadaba ila qaybsatay baa walaalnahay waxyaabahan aad arkaysid ama qadaryadan ama xayeysiinta yararka arkaysid yacni waxba iyaysan damiirkaaga u dhimin
dadku jecel baa haysataa, Soomaali weyn baa ka dhalatay, qof qiimo leh baa tahay, maamo wanaagsan baa tahay, waan ku jecelnahay, ilaahay baa naga jeclaaday maxamed yare. marka baay macaan niyadda khayr u sheeg baan dhihi lahayn, dhammaanna waxaan jeclaan lahaa inaad usoo ducaysaan. Anigu wax kale kuma soo gabagabeynayo. wax kale kuma soo gabagabeynayo. Soomaaligeeda waa mahadsantahay boo macaan, ilaahay thank you boo macaan. social media nolosha tana arkaysaan behind the scenes wax la dhahaa jira, waxaan aragtay kaamirada gadaasheeda ah oo nolosha dhabta ah, wax walbo qosol aa aragtaan, wallaahi lacadi waxba kama jiraan, soo waxa garatay maahan. anaa garabkaaga taagan, beri baan taagnaanaya, maantaan taaganay, shalay baan taagnaa, mar walba anaa ku garab taagan, wallaahi baadan ciilayn, qof ciilan ma tihid, qof ilaahay ma aragtay dadkaas sharafta loo karaamaysan ka dhalatay baa tahay ya. haddii ma aragtay runtii waxaa damiir xumo ah gabadha walaashayda Amiira, in iyadoo aysan kasoo wareegan 24 hours ma aragtay gabadha tan oo diiqadaysan taankii wiilkeeda yarkaa la aasay in video aa kasoo dugtid ya. damiir xumona ma ku dhihi karo, mana garanayo walaalo, laakiin waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa inaa saa wax ka bedeshaan reer Malaysia. wallaahi alcadiim saa haddaad tirahdaan ku wada soconaynaa, walaaltinimo dhaba ma jirto, because mar walbaa faraxsannahay inaan isku wada imaano, isla qasolno ma aha. markaa ma aragtay murugeysanahay waa inaad garabkayga taagan tahay, adna markaa murugeysan tahay waa inaad garabkaaga taaganahay, haddii kale walaaltinimada dhabtaaba ma jirto ya. wax kaa dhiman maanta ma jiraan samsameey, qof gobaa tahay ya. wanaagaagana waxaa yaqaana ama gudi kara qofku bartay, qof kale barasho ugama baahnid in ma aragtay cajalado lagu shido. waan ku jecelahay, Soomaali oo dhan baa ku jecel, intaa halkan ku daawanaysa 4K-ga ah baa ku wada jecel oo maanta garabkaaga oo ka wada damqatay murugada aad ku jirtid maanta waad ka baxaysaa. wiilka yarna saqiir buu ahaa, ilaah baana kaa jeclaaday walaashay macaan, waana kula dareemi karaa xanuunkaaga. waxaan ku dhihi lahaa baay macaan, ilaahay qalbiga ha kuu dhayo, ilaahay qalbiga ha kuu qaboojiyo, wax kastoo jeceshahay ilaahay hoostaada ha soo dhigo. آمين duniduna آمين isku وعنت mid آمين. maaha, shaatigaasaa laba wada wataa ma ahane, dadku isku wada mid ma ahan ya. social media inta lagu jiro waxaa lagu kala bartaa noor qof maaragtay, dhowr qof oo noocyo kala leh baa lagu kala bartaa, waana lagula jiraa lagulamana jiro, yacni waa lagaa jiraa. marka intaasaan ku dhihi lahaa baay macaan, uma baahnid inaad maaragtid wax caddayn ah aad maaragtay la soo horfariisatid youtube-ka, uma baahnid. gabar qiimo laa taha, adaa og runtaada, adaa og adoona maaragtay socialka iyo dadkanba aadan qancin, adaa og runtaada. waa og tahay shalay maxaa la dhahayay markuu wiilkaagu xanuunsanaa waxaad ka soo martay, wixii garabkaaga jooga waa garan kartaa, aduunbaa og kaamirada gadaasheeda. uma baahnid marka qof maaragtay cajalad kuu shidaa hadda, because xaaladdu hadda way wada arkayaan. marka maya hadda waxa gabadha Soomaaliyeed hadda waxay istiri waxay itay ceeb iska tir, laakiin ceeb isku tirtay waxa waaye adiga qof waxaan ku yiri islaam macnihii qof damiirkiisa waxaa ma siin karo inaa gabar maanta tacsi ku dhex jirto laad guurooyahay aadan xataa usoo tacsiyadayn, isku bildhanaan deganahay, inaad intaas videos kasoo duubtid aad macnihii irsaaqad ka raadisid oo rabtid lacag inaad ka samaysid gabar dhibaataysan oo tiraada Soomaali maxamed ay runta ogaada, intaa weliba codkii macnihii runtii xaqiiqdii intaa soo jarjartay, intii macnihii caadiga iska simbalka ahayd aa soo qaadatay, ilaah dukur aad isleedahay macnihii Soomaali qanci oo macnihii ilaah dukuroo yahay waji ka raadso. waxyaalahaas horta ma fiicno in meelahaas irsaaqadu kaa gasho, ilaah subxaana watacaala irsaaqada bixiyo, waxyaalahaas oo kalena ma fiicno in irsaaqada kaa gasho, ma fahantay. sharaftaada adoo sharaf lana sharaftaada hoos looma dhigo. marka waxaan dhihi lahaa wallaahi gabadhaas koley ilaah soo hadayaa dhihi lahaa, wax kale ma dhahayay.
باي وكما سنتا سمسمي fursadda dadka maaragtaan intaa meesha usoo fariisatay intii maaragta hadal hadhow maaragta meelaha lagu warwareejin lahaa ama lagu dhihi lahaa gabadha waa lala xiriiray gabadha iyadaana rabin in lala kulmo gabadha iyadaana rabin wiilka maaragta in hosbitaalka lala galo iyadaana rabin hosbitaalka anagu micnihii ma baarashuud baa kusoo galno hosbitaalka muusan ahayn kii albaabka maya fariixay waxaa kaa dhexgelayaa waxa like isbitaalka waxaa corona la iska baaraa bilaayaa la iska baaraa adi isbitaalka waa igu timaaday corona maa lagaa baaray corona laygama baarin wax la iska baaro malahan at least maanta waxa awoodaan fiiri waxa awooda ceebi waa tii way idinku dhacday maanta waxa awoodaan walaal sorry maalinkaas garabkaaga waa ahaan waaye maanta ahay fiiri wax un waa dhihi kartaa instead of maaragta intaad guilty dareemi lahayd oo maaragta adigu aad iska leexin lahayd bahasha anu hore u sheegay haddana waan kusoo wada celinayaa wallaahi waxa la yaabo walaalo wallaahi aniga hadda waxnii danka ma lihi alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala wuxuu isiiyey macnii strong iga dhigay qofna aanan macnihii aan u baahnayn oo wax walba ani keligay aan qabsan karay xaaladdan waxay ugu cusumahaa 4 sana ku dhex jira alxamdulilah keligay ku ahaa hooyo ila joogin aabo ila joogin walaal ila joogin aan aniga dhexda u xirtay wiilkayga maxay tahay sakaraad iyo maxay tahay isagoo xaalad adag iyo xaalad fiican ku jira labadaba ma fahantay macnihii qofna wax ugama baahni laakiin macnihii xaqiiqada dhabta ah ma ahan tan kaamirada lala horjoogo macnihii xaqiiqda dhabta ah way qarsoon tahay ma fahantay طبعا xaqiiqda dhabta ma aha tan kaamirada tan kaamirada ma because qof waxa waaye qofka walaalkaaya waxa weeye waxbaha u tarin qasamaa in wax la siiyo ma fahantay laakiin qofka walaalkaaya u tag soo booqo maadaama dadku caysho milix la ahaa waqti la wada qaadanayay maxay tahay isku shaqo tihiin farxad isla qaadanayseen adna maalinta xalfada leedahay waa soo wacaysay abaaye xalfadaan leeyahay waxaan rabaa meesha in la camiro hoolka maxay invitation ii keenaysay waa u tagaayay waa la farxaayay ma fahantay so waxa waaye murug markii farxadda la isla qaybsanayo waxa fiican murugtana in la isla qaybsado ma ahan inaa noqotid danayste oo maxay tahay dantiisa kaliya fiirsanayo ma fahantay qofka walaalkaa waa la garab istaagaa maalintu garabkaaga baahan yahay laakiin tan waxa waaye waxa hadda iyagaa bis ceebeeyaba aniga wax ma dhihi karo ma fahanti cashar ha kuu noqoto samsamey marka alxamdulilah